وقال وحتى يسرى يميدن داورو الأقبال لي يصيد دوغيك بحيا كويتو يسرى واليقا كاكتاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتينا ولا لها صومالية بيشكيغا يسرى تيب كحيران انت عدالة الجعل الصومالي وين تكوين تهي بعد السلام قيمة يقايا مدن ولا ليالو وحان ما انتربا قضبك ولا شينا sidaan baraha bulshada Soomaali intooda dulmadiidkay intuu dulmijaceelkaaba ay hadal heeyeen ayaamahan xamdi faarax Allahu raxmaan raaximiin Allah jannadi firdaws ka waraabiyo war qabrigeedana waasac uga dhigay kiiskeedii oo CID da baaritaan ayaamahan ugu heesayo waji cusub la soo baxay sidaan ognahay wiilkii kusaday walaalkeena Soomaaliyeed asagana ahaa oo baraha lagu qabtay galmudug qaasatan magaalada Cadaado loo soo dhoofiyay dawladda federaalka CID da oo sidaad la socotiin siiba walaalayaal aan ogoleen cadaaladda ka dambayso ogoleen in qabiil qof lagu ashtakooyo ama lagu doodo meeshaas oo cadaalad ay taalo qabiil kastana xil uu ka heeyo ma sha Allah ya rabbi ilaahi aan ku shukrineynaa cadaaladda markasta banaanka keena gabadha walaashayna Allahu raxmaan raaximiin maantay ilaahay jirta maantay umki aakhira ka ah oo xamdi faaraxa oo jirkeeda intii la baaray CID ga kadibna isbitaalka loo gudbiyay baaritaankeedii oo waji kala yeeshay meeshaas oo ka cadaatay wiilkan inuuna fartiisa uuna saarin meeshaas oo ka cadaatay CID da ay ka soo saareen deyn aadi laga qaaday inay waxba kama jiraan ay tahay kufsigii la sheegay meeshaas oo ay marqaati furiyaashii meesha taagnaa oo hotelka hoosta ka taagnaa gabadha markay ka soo dhaceysay ay qireen inay balakoonkii ku soo dumay balakoonkii ay taagneed oo apartmentiga ama qolka balakoonkiisa taagneed gabadha inuu soo dumay ay meeshaas ku cadeeyay marqaati fura meeshaas oo lagu cadeeyay gabadhan inay jirkeeda una wiilkan dayn aadigeeda una ku oolin إلهي يا عدالة الجعل إلهي يا عدالة الجعل ما تصو دتكي لغو حرحري أو كمد أها هبلو ووحن لي ابن هبلو حتى صومالية لغو حرحري ماشا لغو سوداي ولا ليالو إلهي يا عدالة الجعل ووحن كدودي ما أهين قف قاسة إنان كدافعي ما أهين قبيل إنان كدافعي دتك إيقفنا إلهي عفسها ورصدان لما أنتينا إنت إيقو قلدومتنا إلهي عفسس ورصدان ليهي cadaaladda waa waxaan u taaganahay waa waxa soddonka sano cadaalad darrida aan Soomaali madaxas ku galnay waa marka hadalaa la soo yiri gaashaan burteeda aan qaato kanaalkayga aan furta ay ka taamaantay baraha bulshada qaasatan YouTube-ka walaalayaal meeshaas oo cadaalad laga sameeyay miyaa la xukumi karaa tiir la soo istaajin karaa qof aan dambigiisii una cadeen waa maya qof dadkii ay ku marqaati furayaan sidaan ni sheegay asaa hormari lahaade ayada hormari lahayn oo balakoonkii u dumay ilaahay subxaanahu wa ta'aala na wada abuurtay dhamaanteynaan ku shukrineynaa markasta runta banaanka soo dhiga meeshaas oonan caad la saari karin CID ga meeshaas oonan la saari karin xukuumadda Soomaaliyeed oo dhan walba iyo qabiil walba Soomaali leh meeshaas aan cadaaladda aan laga geesmari karin oo soo cadeysay gabadhan inanka inuu ku sanin ما شاء الله انتي خقيب قادتي انت حقيقة بنانك صدقتي انت وحان كمهد علينا يا إلهي أسو أديجي ويلكاس دولمها أها إلهي أنكو شكريني متكي نقل انت متكي كلا دولمي درادي سأيو وحانا عادك اللي قفيدين او شعبت اي تهي صومالي اي كل جيان qofkii qalad aqal ha hebela soo yiri qalad uu gal hebela yiri heblaaya ili yiri on maalinta aakhira oo dambi weyn ay xambaarsan tahay ya maalinta aakhir dambi weyn xambaarsan tahay in wiilkaas tiirka la soo istaajin meeshaas oo asna cadaaladiisa kaale miyaanan ogsooneyn dadka YouTube-ka ku hay gabar baa la kusaday dambi weyn inay tahay waxaanad maqaati ka ahayn waxaan cadeynteeda aad heenin miyaysan ogsooneyn dadka baraha bulshada Soomaali weyn ay ku jirto dambi weyn in lagu galo kalaankeena afka ka soo yeerayo
سبحانه وتعالى سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلهي كملان قلنا انت دلميغا ودا انت فسهاد دد كيدا كدادعسينيسا دغهودا إلهي كملان قلنا كوا دلميغا ددka ku raaca in Ilaahay naga madhigan Ilaahay kuma hadina lamaantiina saad la socotiin walaalayaal si aadar aan sheegay aan barayga bulshada soo dhig oo hadeertan aan ku qotun jiro wiilkii cadaalad buu helay dad gabadhiina waxay ka cadaatay inaysan xaqiiqdii markii la baaray inayna wiilkan dambi uuna u geysan meeshiina ay ku cadeeyeen dadkii marqaati joogaha ahaa waxaan u dirayaa dowladda federaalka Soomaaliya ee dambi baarista shaqulka ku leh inay u istaagaan cadaaladaha gabadhii gardaro lagu kusadana kii kusaday ku cadaatana inay tiirka la soo istaajiyo حقوقdiisana la mariyo kii dambiga lagu nabiibayana dambiga aan lahayn Ilaahay inay tawakkal saartaan oo xaqiiqda ay banaanka soo dhigaan qofna tiirkeen iska geynin Soomaali dhamaantay maanta waa 20 milyan oo qura wax Soomaaliya idil ku nool dadkeeni way dhamaadeen mid tiirka la istaajiyo mid la soo halaajiyo oo la soo qarxi lagu soo rido mid dadka umadiisii dhameeyay iyo mid tahriib ku soo dhofo dal shisheeye Ilaahay og inuu nabad ku imaan doono risika soo galiyo wax la yiraahdo noloshiisa Ilaahay aan ka barna ummadeena hadda soo kabcaysa cadaaladda in Ilaahay sidaas iimaanta sidii loo kala fuliyay oo in noqoto oo hadda kadib lagu dhaqaaqo Ilaahay aan ka barinay inta dulmiga wada dulmiga dalkooda ka wado dibadaha joogo YouTube-yada lacaga ku raadsanay baraha bulshada in qoorta isku galiyaan 20 milyan dalka ku wada nool Ilaahay in lahooda zam inuu ka siiyo xaaraantana carabkooda ka ilaaliyo dhamaantiina waxaan ii sheegayaa walaalayaal wiilkii qoyska uu ka dhashay Soomaali qabiil ku weyn yahay inay mudaharaad sameeyeen inay alaaba jajamiyeen inay dawladii Soomaali iyo xaqii dadkii baarayay ay isku dayeen inay musuqmaasuqaan oo loo istaajiyo tiirka qof aan dambi lahayn subhanallah asa wajalla maysan Ilaahay ka baqasho jirin maysan jirin kutubkii Ilaahay furqaan wuxuu soo dejiyay inaan ku dhaqaaqno Soomaaliya dib isugu laabta baraha bulshadana u daayay dhamaantooda shacabka inay cadaaladda ay u doodaan ay daayaan dadkan maalin walba YouTube-yada iyo meel walba soo fadhiisanaya xaqiiq darada ku hadlayo inay ka fogaadaan dulmigooda dhamaantiina inta Soomaali weyn inta beeshkayga ku xiran Soomaali waxaan ii dhaafay سلامتا ugu qiimaha ee qaayaha badan ee dunya aakhiro. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.